dhegaystayaal idaacadaha iyo telefishinada af soomaaliga wax lagaga tabiyo dadka inta u fiirsataa siday og yihiin waxaa beryahan dambe soo kordhay oo aynu maqalaa wariyayaasha qaarkood oo daawatadooda ama dhegaystayaashooda kolkay bariidinayaan hadalkooda ku furaaya subaxnimo wanaagsan, galabnimo wanaagsan, fiidnimo wanaagsan, maalinimo wanaagsan ama habeennimo wanaagsan iyo wixii la mid ah. waana laaxin iyo gaf xeerarka naxwaha af soomaaliga deelqaaf ku ah. dhabtii 2 sano lagama joogo kolkii ay idaacadaha qaarkood bilaabeen dadka ay la hadlayaan in sidaas ay ku salaamaan. dabadeedna dhalinyarada warbaahinta ayaad moodaa inay ku daadatay isagana dayatay adeegsiga salaanta caynkaasa, gaar ahaan marka soo jeedinta barnaamijyadooda maalinimo ay gudagalayaan. haddaba sidaan carabka ku soo dhuftay, isnabdaadinta sidaas ihi af ahaan ma hagaagsana, waxaana ku jira laaxin loo baahan yahay in laga saxo. hase ahaatee inta aanan laaxinkaas soo dibadbixin aan dib ugu yara noqdo hababkii ay soomaalidu isu nabdaadin jirtay, gaar ahaan waayadii dhaqankeedu uu badiba reermiyinimada ku salaysnaa. 2 qof oo aan is-aqoonay kolkay meel isaga hor yimaadaan, kolba koodii nabdaadinta ku hormara ayaa wuxuu odhan jiray nabad ma sheegtay. markaas buu ka kalena wuxuu ku jawaabi jiray nabad baan sheegay, adigu maxaad sheegtay, bal waran. kolkaa kadib ayay ishaybsan jireen, iskana waraysan jireen mid waliba waxa uu rabo inuu wax ka ogaado iyo dantii uu ku raad joogay. baadi xoolaad, abaar iyo aaran, roob iyo deegaan, colaad iyo nabad iyo dhammaan labada mid walba meesha ay saantiisu ka soo jeedo wixii lagu qabay. taasina waa markii ay arrintu joogto 2 ruux oo socoto ah ama koox negi oo meel shiran ku ah iyo koox kale oo markaa la soo joogsatay. ha yeeshee waxaa jirta isnabdaadin kale oo si gaara iyada looga garan karo dhinacyada isnabdaadinaya wakhtiga ay markaa ku sugan yihiin. ma habeenbaa, ma maalinbaa? bal tanna aan tusaaleeyo. nin socoto ah ayaa goor ay fiid hore tahay waxa uu la soo joogsan jiray reer wax yar ka hor rugahoodii u soo hoyday oo xoolihii soo xeraystay oo maalay oo carruurtii seexsaday amaba ay markaa u seexanayso. goortaa oo kalena nabdaadinta ninkaasi waxay u badnayd inay noqoto war maxaa lagu soo uruuray. dabadeedna odayga reerka u weyn ayaa ku jawaabi jiray nabad baan ku soo uruuraye, adigu maxaad sheegtay. halkaas buu iswaraysiga kale ka sii socon jiray. ninkaasina reerka ayuu habeenkaa martiyi jiray ama meel kale oo uu yaqaan ayuu u sii dheelman jiray. isla ninkaas socotada ahi kolkuu waa berigii ku soo baxo, reero kale oo xoolihii ay weli u xeraysan yihiin oo markaa harubada u qaatay amaba kala soo baxay waxa uu ku nabdaadin jiray maxaad ku barideen, ama maxaa lagu bariyey, ama ciddu maxay ku bariday. odayga reerka ama ragga waaweyn ee u dhalay midkood ayaa markaana ku jawaabi jiray nabad baan ku barinay alxamdulilah, wax soo aadan allaa og, wax weydiin ogaal, warka yaa inta la eg, waa siday adigu maxaad sheegtay. mararka qaarkood haddii ninkaa reerka lehi uu dayrsanayo ee uu gocanayo dareen dhowaan qoladooda la soo gudboonaaday, sida rag laga laayey, xoolo laga moolo duugay, dumar laga boojiyey iyo wixii la mid ah, nabdaadinta ah maxaad ku barideen wuxuu kaga jawaabi jiray la soo kaakac, nin iyo waagii, madaxa la qaad, aadana mooye eebba wax ka sheegan mayno, ninkeed dhibi ma yara iyo erayo la mid ah oo midka socotada ahi uu ka garan jiray dhacdo aan la mahdinin inay reeraha ku cusub tahay. guud ahaan sidaas bay muddo dheer isnabdaadinta soomaalidu iska ahayd. waxayse wax iska bedeleen oo ay wax ku soo kordheen xilligii gumaysiga, gaar ahaan barkii 2 ee qarnigii 20aad. qayb weyn oo bulshada soomaaliyeed ka mid ahi waa markii ay reer magaalowday. dhalinyaro door ahi waa markii waxbarashada casriga ah ay dugsiyadii shisheeyuhu furay ugu xeraysatay. waa xilligii ay bilaabatay inay soomaalida dhexdeeda ka hirgalaan hababkii isnabdaadinta ee qaramadii gumaystay ay bareen, sida bonjorno, bombomarijo, buonasera, good morning, good afternoon, good evening iyo wixii la mid ah. muddo waxay sidaas ahaato oo hababkii isnabdaadinta afafka shisheeyaha lagu xaragoodaba waxaa la soo gaaray dhammaadkii 1940nadii iyo bilowgii 1950nadii qarnigii 20aad, markaasoo xisbigii gobonimo doonka ee leegada loo yiqiini uu calan walaynayay.
sida laga yaabo in weli la xusuusan yahay wadaniyad heer jidba gaarsiisan iyo qab umadnimo oo caqiida diineed lagu saaweyn karo ayuu xisbigu baryaha soomaalida ku wada tallaalay, waxaana ujeedooyinka u dhignaa ka mid ahaa in af soomaaliga la qoro, sidaasna afafka shisheeyaha lagaga maarmo. haddaba sanadkii 1949 ayaa magaalada Xamar iyo naadigii leegada dhexdiisa waxaa laga furay urur dhaqameed la baxay goosanka af Soomaaliga, kaasoo ay asaastay dhalinyaro Allaha u naxariistee uu hormuud u ahaa afyaqaankii la oran jiray Yaasiin Cismaan Keenadiid. waxay ahaayeen dhalinyaro aqoontii ay dhaqankooda u lahaayeen ku darsatay tii casriga ahayd ee ay ka kororsadeen dugsiyadii maamulkii Talyaaniga iyo kii Ingiriiska ee dalweynaha Soomaalida u wada taliyey intii u dhaxaysay 1941 ilaa 1950. waxay ahaayeen dhalinyaro uu dardaray jacayl aan soodin lahayn oo ay u qabeen af Soomaaligooda, kaasoo ay u arkayeen eray iyo oraahba inuu aad hodan uga yahay, sidaa darteedna aanu u baahnayn afaf qalaad erayo looga soo amaahdo. markaas bay aad isugu howleen eray kasta oo afafka shisheeyaha ku abtirsada Soomaaliduna ay ku hadasho inay ku bedelaan ku la mid ah oo asal ahaan af Soomaali ah. xilligaas ayay bilaabeen hawsha aynu haatan eray bixinta u naqaan. xilligaas ayay afka ku soo dareen erayo fara badan oo ku cusbaa eegase ka mid noqday. xilligaas ayay dhalinyaradaasi waxay Soomaalidii reer magaalka ahayd ka reebeen adeegsiga isnabdaadintii afafka shisheeyaha uga timid, dhowaantana ay qaayibeen. waa xilligii ay soo saareen weeraha ay ka midka yihiin subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan iyo maalin wanaagsan, kuwaasoo haddiiba bulshada dhexdeeda ka hirgalay lagagana kaaftoomay kuwii Ingiriiska ka soo jeeday sida good morning, good afternoon, good night, iyo kuwii Talyaaniga laga bartay sida buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, iyo kuwii Carabiga inaga soo galay sida sabaax alkhayr, sabaax alnuur, leyla saciida iyo wixii la mid ah. waxaa kaloo xusid mudan in dhalinyaradaasi ay afka ku soo kordhiyeen ereyga mahadsanid oo lagaga maarmay ereyadii shisheeye ee kala ahaa thank you, grazie iyo shukran, isla markaana waxay u soo rogeen oraahda ah adaa mudan oo ay jawaab uga dhigeen. sida haddaba inoo wada cad, isnabdaadintaas cusub ee af Soomaaliga ay reer magaalku ku soo kordhiyeen waxay mid waliba ka kooban tahay laba eray oo qura. erayga hore waa magac sida subax ama galab ama habeen ama maalin. midka labaadna waa tilmaano, waa erayga wanaagsan, kaasoo magac walba gadaal laga raaciyey. maxay haddaba qalad u tahay oraahda ah subaxnimo wanaagsan iyo kuwa la midka ah ee haatan lagu daatay la isagana dayday? naxwo ahaan dibkabaha nimo markii magaca gadaal laga raaciyo wuxuu faa'iideeyaa macno hor leh oo ka duwan kan uu leeyahay markii uu keligiis ahaa. wuxuu u rogaa tilmaan. sidaa daraaddeed subaxnimo waxaa loola jeedaa subax ahaansho, habeennimona habeen ahaansho, galabnimona galab ahaansho. sidaasna waxaa kuugu caddaaday erayada subax iyo subaxnimo inay kala macno duwan yihiin, sida nin iyo ninnimo ay u kala macno duwan yihiin, oo habeen iyo habeennimo ay u kala macno duwan yihiin, oo geesi iyo geesinimo ay u kala macno duwan yihiin, oo galab iyo galabnimo ay u kala macno yihiin, oo gabar iyo gabarnimo ay iyana u kala macno yihiin. haddii aadan odhan karin waxaa koldhow inoo iman doona ninnimo wanaagsan oo ay qalad tahay, sidee baad u odhan kartaa habeennimo wanaagsan? haddii aadan odhan karin hebel waa geesinimo caan ah oo ay qalad tahay, sidee baad u odhan kartaa maalinnimo wanaagsan? sidaa darteed waa gaf iyo laaxin weyn in la yidhaahdo subaxnimo wanaagsan ama habeennimo wanaagsan ama galabnimo wanaagsan iyo wixii la mid ah. dhegaystayaal, aan idin xusuusiya waxaa jirtay hees caan ahayd oo 1960nadii qarnigii 20aad oo Cali Sugu la curiyey, halkuu dhegeeduna ahaa nin lagu seexdo ha seexan, taasoo uu ku daray oraahda ah subax wanaagsan oo aan sibaabnayn. subag weel ku daatay sina uma xumaadee, waa subax wanaagsane calankana salaama, nin lagu seexdo ha seexan, soo jeedo si weyn
u feejigow. الصبح وانا قدامي على كان السلام والصبح وانا قدامي على كان السلام من لقوا السحر والسحل اللي بس ضاع السحل من لقوا السحر والسحل السحل 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 سجد وينو فيكبو. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.